الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إلهي عبسيدي سان إذن دردار مياه إيا شرعي سيناد إلى لسان حيل الليبان توالكاس يكشرتا الدنيا أخربا وحردين كدق يا إلهي تبارك وتعالى إن العاصدان شرعي خلافتان أمر كيس تشبيسان حيل الدنيا أخربا خساروها الكاسو كجران أنت كذب waxaan jeclahay inaan dul istaagno laba dhacdo oo usbuucan ina dhaafay ka dhacday dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ka mid ah ee dhulka ka dhacay. midda hore waxay ku saabsan tahay deegaamadeenna, waana dhacdada ka dhacday magaalada Laascaanood iyo dagaalka ka socda. dagaalkaasi waxaan leenahay waa inuu istaago, waa in la joojiyo, waa in la wada hadlo, waa in la wada fadhiisto, waa in si degdega uu istaago, waa in dhiigga daadanaya iyo hantida burburaysa iyo dadka qaxaya la joojiyo. maslaxa kuma jirto 30 sano kadib oo dalka ay dagaal la sokeeyo burburiyeen oo caqli iyo ay aragnimo ay kordhi lahayd in maanta dagaal lagu noqday wax maslaxa kuma jirto. duruustii ina soo martay inaynu wax ku qaadan weynana waa caqli xumo inteeda la eg. dagaal wax ma dhalo, faa'iidana ma laha markuu dad muslimiina u dhaxeeyo. marka hore waa isu ka qurxinayaa inaad faa'iido ku gaadhayso iska tusaya, shaytaan baa ku muujinaya, laakiin akhiiran marka ugu dambaysa ceeb iyo dhooba ayaa dhex fadhiisani, natiijana ka gaadhi maysid. midhaheedana waynu haynaa. iyadoo ay sidaa tahay oo waajib tahay in islaax iyo nabad dhulka lagu soo dabaalo, dagaaladuna istaagaan, ayay haddana waxaa laga maarmaan ah oo ayna arrintaasi diidaynin inaan caddayno sida saxda ah iyo khaladka dhacay iyo maxaa habboonaa. magaalada muddo fatra waxaa ka jiray nabadgelyo xumo, waxaa ka jiray dilal qorshaysan oo hadafkeedu u ahaa lagu beegsanayay bulshada labeenteeda, haldoorkeeda, ganacsatadeeda, culimadeeda, odayaasheeda, waxgaradkeeda. ka duwan deegaamada kale ee xukuumadda Soomaaliland ay ka taliso oo muddadii 30 sano ahayd nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax ilaahay lagu mahadiyo laguna farxo ku sugnaa. aad iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo, iyadoo deegaamada kale Soomaalida intooda badan qaraxiyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen. haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo, ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan. laakiin waxaa ka duwanayd magaalada Laascaanood. dilalka dhacaya muddada soo socday, mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddii meesha ka talinaysa. yaa samaynaya, yaa dadka laynaya, yaa dadka iqtiyaalaya. maxaa ka duway magaaladan magaalooyinka kale? waa su'aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumadda. xukuumaddu waa ku fashilantay inay arrintaa iyo malafka iyo faylka inay xalliso. waana wax iska cad, cid walbana isweydiinayso, nin walba maxaa dhacay, see wax u jiraan. qodobkaasi waa qodob muhiim ah. qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen
oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arrintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn jid kaloo wax lagu halayaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu dalika waa khaladaad isfuulay oo tahay in la cadeeyo anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aan danka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhim haba kharaadaado laakiin waxa kugu soo gaadhay cay aflagaadiya faham xumo ninkeeday u taalaa laakiin xaqiiqada in la cadeeyo waa laga maarmaan kullu dalika waxa mas'uul ka shacabka dawladda u talisaay mas'uuliyadeeda way ayada laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso iyada laga rabaa istiqraarka inay ka shaqeyso ayada laga rabaa wixii dib ku soo kordho dadka inay iyadu xalliso iyada laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato mas'uuliyad dawladeed waay waxaanina ma yimaadeen haddii ay hore wax loo xallin lahaa ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku ninku faa'iidayana ma jiro waa in la joojiyo maslaxadana loo soo noqdo wada hadal loo soo laabto ummaddu wada fadhiisato dhiigga la daadinayo la joojiyo magaalooyinka la garaacayo la joojiyo dadka qaxaya la joojiyo dhibaatadan socota in ay istaagto way xataa hadday labada dhinac midkood uu isgar siinayo ama gar leeyahay ma keenayso in muslimiinta dhiigooda la daadiyo bal sida fiicani wax way in maslaxa looga wareego waay waxa daliil nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu sii sheegay dhacdo iimaan doonto wuxuu sheegay nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in ay laba kooxood oo muslimiinta kamidi islayn doonaan labada kooxood xilligay islaayaan waxa ka dhex bixi doonta koox kale oo saddexaad kooxda goonida u baxday saddexaad waxa la dagaalami doonta buu nabiga sallallahu alayhi wasallam labadii kooxood ee dagaalamayay hore midooda xaq u dhow ayaa la dagaalami doonta kooxda baxday buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lagu fasiray xaqiiqaduna tahay xilligii saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dagaal dhex maray Ali ibn Abi Talib iyo ciidan uu hogaaminayo radiyallahu ta'ala anhu iyo Muawiyah ibn Abi Sufyan ee reer Sham oo ciidankiisa labada ciidan waa labadii ciidan ee muslimiinta nabigu tilmaamay inay isku dhici doonaan dagaalkooda dhexdooda waxa ka baxay khawaarij oo labadiiba intay ka dhex baxeen bay meel isku urursadeen oo labadii qoloba gaalaysiiyeen khawaarij waxa la dagaalamay Ali ibn Abi Talib iyo ciidankiisii kooxdiisii baa la dagaalantay nabiguna wuxuu sheegay kooxda waxa la dagaalami doona labada kooxood midooda xaq u dhow Ali iyo kooxdiisa xaq uga dhaweyd Muawiya iyo ciidanku watay nabigaana sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadii rasuulku yiri qoladaasa xaq u dhow hadana ma dalika dagaalka dhexdooda nabigu ma amaanin sallallahu alayhi wa alihi wasallam bal nabigu ummadda wuxuu ugu yeeray adoo xaq uga dhow
oo ka gar leh haddana ku dadaal inuusan dhiig daadanin oo maslaxa la raadiyo oo la wada hadlo oo dhibaatada la soo afjaro wuxuuna nabigu arinta ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wiilkiisa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam maalin isagoo agtiisa fadhiya nabiguna minbarka saaray ayuu rasuulku marna isaga fiiriyaa marna ummadu fiiriyaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wiilkaygani waa sayid ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta islaynaya ayuu ilaahay ku heshiisiin doonaa sababtiisa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib markii aabihi Ali la dilay isaga ayaa xilkii qabtay markuu saa u qabtayna Muawiya wada hadleen wuu ka tanaasulay mas'uuliyadii buu uga tanaasulay isagoo ciidan xoog badan iyo tabar xoog badan oo waliba Amr ibn Aas oo Muawiya la socday aad uga calaalay ciidan xoog badan isagoo Hasan heli kara ayuu ka tanaasulay dhiigga muslimiinta si loo baajiyo wuxuu uga tanaasulay Muawiya uga tanaasulay sanadkaasi waa sanadka caamul jamaaca la yiraahdo waa sanadka muslimiintu mar kale isu yimaadeen dagaalkii dhexdooda uu dhamaaday midnimadii ay dib u soo noqotay hal dawladda ay yeesheen kala jabkiina uu baaba'ay nabigu u fiirso marka asagoo tilmaamay Ali iyo kooxdiisu inay xaq leeyihiin haddana nabigu dagaal ma amrin kulamana talinin bal wuxuu amaanay sulxa iyo heshiiska laga galay dagaalka isaga ayuu nabigu sayidnimo ku siiyay wiilkiisa Hasan radiyallahu ta'ala anhuma marka xaq baan leeyahay iyo gar baan leeyahay inta aad heli karto meelaad uga leexato oo maslaxa iyo nabad ku raadiso inaad dagaal iyo dhiig muslim gashay sax ma laba gooraba dagaalkaasi inuu sii socdaayo maslaxa kuma jirto waa in la soo afjaro oo dagaalkaasi la joojiyo inaga muslimiinta kale Soomaalida kale ummadda muslimka nidaam iyo dawlad iyo shacab waxa inaga saaran xil laba arimood arinta koobaad waxa weeye in la galo heshiisiin wada hadashiin isoo jiid cadaadis in la saaro dhinacyaha cadaadis la saaro cid kasto awood kulana ay ka shaqeyso sidii loo joojin lahaa xabadan iyo dagaalka loo heshiin lahaa waajibina saaran waa الله قرآن الكريم كأوحو كليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا لوكو حوض مسلمين تا إسلايان مؤمنين تا هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هشيسية كالع شقية واجبك إن صار لكا إساقوا ما إنا دينا على صفرنا دينا عكالنا كصفرنا فتنة سيسية دينا مئها وإنا إنو كشقينو سيدي مصلحكو إيمان لهين هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى طبعا هديك كوح كم إذا كوحها سي هشيس كديدو وأي كوك عن صيدو ودقالك خيار كيسا أي دورته مركز ربي وحده تبارك وتعالى هديك كوحي ديدو هشيسك إذن كل جينا الله وضع الدقال الله مرك سير الله سوى أفجر مشكلة آيات القرآن كان ربي هدى عن آخرين وكوت المامي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله واجب كمسلمين تواكا إساقوا واجب كاللبادي وحوي دادك كل باتوبي دقالك إساقوا كبرك عي كبرا وعمي كبا باي دين عيدونا هجرا إن لو قرمدو إن لعاويو إن لداويو بنام بيتشيوغان قرحدا كل عيسى كليل كتشيرو ودكسونتين هوي مالي إن dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo iyadana waa waajibka labaad ina saaran meel kasta oo muslimiinta mushkila ku haysatana inaynu ka jawaabno oo aynu wax la qabanno dadka dhibaataysan waajib iimaanku ina farayo waay qodobka saddexaad ee inuu waajibka wuxuu yahay in la joojiyo ololaha qabyaalada ee dagaal oogida ee xamaasadu ku salaysan tahay xamaasadu ku dheehan tahay ee ka socda media ka socda ee aan maslaxa u adeegayn ee la taxriifinayo hadal baa xabada ka daran hadal baa fitnada uu aboorayo madfaca ka daran in hadalada iyo waxa la isdhaafsanayo iyo umadu ka shaqeyso in suluxa iyo maslaxada iyo wanaagiisa iyo dagaalka xumaantiisa laga sheekeeyo dadka walaalaha la isu soo jeedo laakiin aan laga shaqeynin in balaayo la abuuro fitna la kiciyo media loo isticmaalo meel balaayo lagu abuuro
ama muxuu ahay qashinkii wadanku soo maray dib loogu abaabulo arintaasina waxa weeye waa fitno culayskeeda la waxaad ogaataa kelimada ka baxaysa ay waa mas'uuliyad ilaahay hortiisa lagu weydiin doono haddii ruux muslima dhibaato lagu gaarsiiyana adaa u soo istaagi doona kelimo nuskeed haddaad kaga qayb qaadato dhiig muslimna maalinta qiyaamada ilaahay hortiisa soo istaagi doonta ku talagal ruux banaftiisa ha xisaabiyo maslaxadii wanaagana ha laga shaqeeyo xadadka iyo dhacdadaasi intaas baan ka dhahayaa dhacdada labaad ee mudan inaynu dul istaagno waxay tahay dhacdada ka dhacday Turkiga iyo wadanka Suuriya qayb ka mid ah dhul gariirka ku dhuftay ee aad u xoogan ee dad badan uu ku baaba'een dhowr iyo 20,000 oo ruux bay dhimashadu maraysaa inta la laayahay iska daa boqolaal kun baa ku barakacay kumayaal guri baa ku dumay musiibo rabbi waay musiibada rabbi markay ibaanayso sabab bay leedahay quraanku inoo sheegay waa dambiyadeena inaga galay iskama imaanin quraanka faahfaahiyay waana mas'ala ka qarsoon calmaaniyiintii iyo wax magaradka ka qarsoon way asbaabta ay leedahay masaa'ibta dhacaysay allah masaa'ibta keena inoo cadeeyay waa sabab inagu aynu leenahay ha ahaatee haddana markay musiibadu dhacdo waxay u baahan tahay waajibaad baa ka dhalanaya waajibaadka ka dhalanaya waxa weeye dadku waa dad muslimiin ah dadka muslimiinta in lala danqado in lala xanuunsado in laga naxo in loo danqado inta kaliya ma aha wixii lagu caawin karo lala gaari karo in lala gaaro waa waajibka ina saaran weeye waana iimaanka keenaya iimaanka inaga dhaxeeya iyo islaamnimada inaga dhaxaysa iyo xiriirka diineed ayaa wuxuu keenayaa muslimka ku dhiban adduunka darafkiisa u shisheeyay in aad la danqato la xanuunsato dhibaatada haysata hatta yuusan dal kula wadaagin hatta yuusan dhalasho kula wadaagin hatta yuusan maslaxa muayana idinka dhaxaynin laakiin waa walaalka oo muslim ah innamal mu'minuuna ikhwa la xanuunso ugu yaraan hadaada wax kale heli karaynin la caatifood هذا وحكى هيري كرين أدعي نبي قول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تصفضوا استعيل كودا اسو نحريس شدودا اسو عاطفات كودا اسو عاطفون يان الله النبي قول صلى الله عليه وسلم هل تشد او كلواي حبنه بين النهي ومدنا واجيركي شركاسي حبين هدو حنون صدو انت كلوا اني لا حنون صتو وين لا حنون صنو لا عاطفون ادعينو انت دمت الهي انو نحريستو انت داوع الهي تبارك وتعالى داوعوده انه ربي تبارك وتعالى او داويو انت محو اهي بنانك تعالى ربي تبارك وتعالى هو انه سيو الهينا مصيبداسي او اجر iyo kasiyo طهاره kasiyo بدل خير قولك ورزاق ان دعاين دعاء كليه ما هي waxaad kari kartana walaalka la gaar sidaan u nidhi tan gudaheena gurmad bay u baahan tahay taa dibadda walaalaheenana gurmad bay u baahan tahay gurmad bay kaaga baahan tabartaadu intay dooni hadhanaato gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa aad u jeclaan lahaa oo qalbigaygu ileeyahay oo malanaya in badan oo inaga midana inaan isleenahay jihooyinka rasmiga ee Soomaalida andimadooda iyo dawladoodu waxaan isleeyahay waxa haboon ama haboonayd in ay wax ka badan tacsiyada wax ka badan in ay samaysaa haboonayd ugu yaraan danqashada islaamnimada iyo iimaanka marka laga tago labada shacabka Turkiga iyo dawladiisa iyo shacabka reer Suuriya intuba Soomaali abaal bay ku leeyihiin abaalka Turkigu inugu leeyahay Soomaali ku leeyahay waa midaan qarsoonayn kulligeena aan u wada nooleyn u joogna ilaa haddana socda dawladda kaliya Soomaali marka laga jeesaday madaxweynaheedu ama ra'iisul wasaaraheedu airportka ka soo degay indhihii adduunka soo jeediyay ilaa maantana Soomaali garab taaga waa Turkiga way miyayna haboonayn inaad ka abaal guddo ugu yaraan abaal wax yaro abaala inaad guddo Suuriya waa dalkii kaliya ee Soomaali markay burburtay carabna ka jeesatay dalka kaliya u furnaa Soomaali ay degi kartay baasaboorkooda lagu geli karay fiisa aan Suuriya ah ilaa uu ka burburay Soomaaliduna dad karaamo leh oo sharaf la ay ku la soo dhaweyn jiray shacabka reer Suuriya waa shacab muslim oo sunni ah dawlad xun baa lagu ibtilay
miyayna abaal kugu lahayn oo ugu yaraan intii lagu galay boqolkiiba hal ka mida inaad guddood isxilqaanto miyayna ahayn oo ina mudnayn mise waxaynu ku marmarsoonaynaa sheekhow taanadaa nasaaqatay annaga intana haysataa naga badan masaakiin baanu nahay waxba ma heli karno marmarsood miyayna noqoni war wax yar siday dowladaha qaarkood sameeyeen shacabka intaad sanduuq u fura waxaad tidhaahdaan musiibadaasaa laga jawaabayaaye shacabkii iyo ganacsatadii iyo dadweynihiiyo ka soo jawaaba boqolaal kun oo dollar $1 milyan oo dollar diyaarad ku qaada dhaqaatiir saara teendhooyin saara waxoogaa daawooyina saara sijilliga taariikhday idiin gelaysaa waxoogaa yaroo abaalgud awey abaal aad gudaysa wey adigana waxba aan ku yeelaynin wax yar oo dadkii walaalahay shalay kuu danqaday inaad u danqata ay tahay wey hawshaasi waa hawl muhim ah haddii hadda ka hor ayna seegtayna ay tahay in la dawa qabto wey wa ilaa waxaan noqonaynaa dad liita oo xabaali qori saar mooye qori ka qaad ma leh dad in wax la taroy wax cunaan mooye aan abaalna aqoonin waxna dad tarin ummadana aan u danqanin suuradaasi waa suura xun laysa lana mathalu sawb nabigu sallallahu alayhi wasallam magac xun iyo tusaale xun inaan qaadanno sax ma nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuuna faray gacanta iyo abaalka lagu leeyahay in laga abaal gudo xataa gacanta cid kugu leh gaalba ha noqoto maalikii nabigu sallallahu alayhi wasallam dagaalkii badar uu gaaladii reer maka uu ka qabsaday ka qafaashay oo dagaalka ku qabtay rag badan oo gacantiisa ay ku jiraan ayaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mut'im ibn Adiy ninkii la dhihi jiray hadduu noolaan lahaa maxaabiistana igala hadli lahaa waa u sii dayn lahaa buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mut'im ibn Adiy ma taqaanaa Mut'im ibn Adiy wuxuu ahaa nin oday ah oo gaal ah oo rasuulka intaan la soo saarin dhintay laakiin rasuulka gacan ku lahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo gaal ah oo gaalnimo ku dhintay gacantuu rasuulka ku lahaa iyo abaalkiisii ayuu rasuulku wuxuu leeyahay hadduu maanta noolaan lahaa maxaabiistana igala hadli lahaa waa u sii dayn lahaa buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam abaalgud rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ciddii wanaag idiin samaysa wanaaga ka abaalguda buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam kolba waxaad heli kartaan haddaad weydaan waxaad abaalkaa ku gudaanna u duceeya buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam ilaa aad istidhaahdaan alalahi abaalkii waad gudeen duco xataa duca ma hayno wax kale warkeeda iska badaay wadaalika adna maa yakuun wixii ugu yaraa waxaan leeyahay marka war abaal baa laynagu leeyahay waxaan sax waa tabar daranta laakiin waxaa loo baahan yahay axdaaftan oo kale markay dhacayso inaad ka dhex muuqato waxaan la yaabay markaan taqaariirta akhbaariga iyo wararka akhriya dhacdada ku saabsan dowlado yaryar oo adduunka ka mid oo daciif oo gaalo ah oo haddana gaalo ah baa ka soo jawaabaya dhibaatada oo gacan ka geysanaya diyaarad daawooyina soo diray dhakhaatiir waxoogaaya soo diray waa dowlado yaryar oo haddana gaalo ah annaga miyaynan mudnayn marka shacab iyo dowladba war miyaynan mudnayn oo arrintaasi aynu munaasib ahayn jawaabteennu inay ka siyaadsan tahay tacsiye iyo hadal iyo qoraal loo qoro dowladda inay wax ka siyaadsan baa laynaga mudan yahay qadiyadaana jawaabta ay mudan tahay aynu siino labada dhacdo waa laba dhacdo oo muhiima labadaba ilaahay waxaan u weydiinaynaa tabaaraka wa tacaala mu'miniinta ku dhibaatoobay in rabbi tabaaraka wa tacaala inta dhintay u naxariisto inta dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka qaado inta banaanka jiiftana rabbi tabaaraka wa tacaala naxariistiisa u doodajiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inagana masaa'ibta ina garamariyo waajibaadka iyo xilka inaga saaran howlahaana ilaahay ina fahansiiyo inoona fududeeyo hada billahi tawfiiq sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك